بسم الله الرحمن الرحيم. walaalyaal waxaan soo asaasnay waxyaabaha ku saabsan QuickBooks sida qofka ama dadka shirkadda ay lacag wada gashan karaan oo loo maalgelin karo shirkadda. waxaan ognahay in shirkadda hadda lacag ay ku jirto oo oo loo maalgeliyay laakiin alaab la soo gadin waxyaabo badan aan la sameynin ay shaqo ay bilaabeen wali. waxaan tagaynaa report si aan u ogaano inta lacag ay ku jirto company-ga ama shirkadda. waxaan tagaynaa reports company and financial la tagaynaa kadib waxaan aadanaa ilaa dhanka ay ku qoran tahay hoose balance sheet standard. waa kana reportka oo ah Al-Fatah Store balance sheet. company-ga Al-Fatah Store la yiraahdo balance sheet-kiisa waxa waaye assets, current asset, checking savings, lacagta lagu furay shirkadda. ana hore hadda la socotiin casharkii horeysay markaan asaasaynay shirkadda waxaan furnay account la yiraahdo lacagta lagu furay shirkadda oo kale ayaan magac ugu sameynay shirkaddaas oo aan dhignay 50,000. 50,000 waxaa iska leh waan sii weynaysiinaya halkan. 50,000 waxaa iska leh qaybta hoose aad equity meesha ku qoranta. equity waxaa waaye dadka hantiilayaasha ayaa equity la yiraahdaa. marka waxaa ka mid ah marka cali doodaya oo kale 30,000 uu leeyahay, naciima waxay leedahay 10,000 leedahay, sahro ciil waxay leedahay 10,000 leedahay. marka haddii isku daro waxay noqonaysaa 50,000. marka waxaad ogtihiin shirkadda inay ku shaqeyso ama ay lagu bilaabay 50. marka 50,000 ayaan kasii ambaqaadina insha Allah taala. hadda shirkadda waxaa noogu jiro 50,000 ayaan ku aangelinay. marka waxaan u baahanahay alaab inaan soo gadano sifa aan markaysa aan howlihii aan u bilowno oo kale. marka casharka hadda taasoo ku saabsan tahay. tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan soo gadano tusaale ahaan okay. marka waxaa soo gadanaynaa tusaale ahaan miiskii iyo maxay sanduuqii ama kuraastii lagu farsan lahaa ama xafiiskii qalab ku jirtay ayaan rabnaa soo gadano. marka waxaan tagaynaa banking aan tagaynaa sifa waxaan rabnaa inaan wax u soo gadano aan shirkadda u asaasno xafiis rabnaa inaan furno. marka insha Allah waa la soconaysiin. marka banking aan tagano right checks aan leena ama control plus w okay aan dhahayaa. okay markaan dhaho waxyar kadib soo baxaya. marka right check waa kana bank account lacagta lagu furay shirkadda ayaan ku magacaabay. kadibna waxa waaye halkan haddii bangi fara badan leedahay waad ku soo baxayaan ama account fara badan oo lacag lagu keensado leedahay oo aad magac samaystay halkan ayaa ku soo baxayaan. haddii kalena haddii hadda arabto inaad account kala furtona add new aad dhehaysaa. marka taas casharka gooniga kala dhigi doona insha Allah. ending balance lacagta nagu jirto waa 50,000 saa hore sheegnay. 50,000 qofka sala ciidilsay waan soo qaadanay. marka waxaan rabnaa inaan wax aan soo gadano shay tusaale ahaan meesha aan wax ka soo gadanayno inta waa pay to the order of. tusaale ahaan hadda wax oo noo diiwaan gashan ma lahan waa cusub yahay shirkadda. waxaan leeyahay horyaal company ayaan waxaa ka soo gadan rabnaa alaab oo ah waxyaabo fara badan oo alaabta wuxuu gadaa. tusaale horyaal wuxuu gadaa kuraastii qalabkii adii xafiis dhan oo gadaa. marka waxaan rabnaa ka soo gadano one by one. halkan iskaga dhufo meel ama meel cidla iskaga dhufo ama meel halkan uu ku weydiinaya. marka wuxuu ku leeyahay horyaal company is not in the name list kuma jiro leeyahay. marka maxaa la sameynaa marka quick add had ku dar oo kale. halkan waad qori kartaa set up haddii rabto faahfaahin fara badan inaad ku darto ayaa halkan ku dhufanaysaa set up. haddii kalena anaga isku soo gaabsanayno casharka quick add aad dhehaysaa. marka wuxuu ku weydiinaya marka horyaal company muxuu yahay ma vendor baa mid alaab ka soo qaadanayso maya mar walba mise waxaa waaye customer. marka vendorka waa noocaas. haddii customer rabtana hadduu macaamiil qof alaab ka gadanayo mar walba customer ka
asigoo alaab ka gadanayo ayaa waxaa dhici karta mar qaar asigana inay wax ka soo gadato oo computerka aad ku soo fikirayso as a customer qofkaas laakiin asigana alaab kaloo gadaa oo waxyaabo fara badan aad ka soo gadan kartaa marka halkan waa customer ka qodan kartaa ama shaqaalahaadii ayaa waxaa laga asigana inuu dukaankan leeyahay oo alaabtan lagu gado marka asigana maasha allah waa kasoo maxeedo kasoo gadan kartaa waxaa dhihi kartaa employee dhihi kartaa ama adaa waxyaabo kale aad iskaga qori kartaa laakiin hadda aniga fundraneena waa company alaabtan iibiyo oo aniga marba waxa rabno aan kasoo qaadana waa marka okay dheh horyaal company saas ayuu noo diiwaan gashinahay asagoo ah company kale oo aniga alaab kasoo qaadano marka shayga aan rabno inaan soo gadano ayaa waxaa rabnaa inaan ku qorno halkan waxaad tagaysaa expense meeshay ku qoran tahay aan tagaynaa marka accountkan ayaan u sameynaa marka accountkan waxaa dhahaynaa qarashaadka shirkadda aan dhahaynaa shirkadda marka waxaa waaye account ayaa u sameynaya wax alla wixii oo kharash ah oo shirkadda maxeedu oo bixinayso hadday naqan lahayd maxeedu mishaar ama waxyaabo kale waxa laga kharash ah halkeen aan gashan doonaa account-kan ayaan ku dhiran doonaa insha Allah taala keyboard-ka waxaan taabanayaa tab wuxuu leeyahay qarashaad ma aqaan uu leeyahay hadda baro marka waxaan hadda baranaa cookbooks-ka waxaan cookbooks-ka ogeysiinaynaa inuu yacni qarashaad ka shirkadda account yiraahdo inuu noo save gareeyo hadhow dambe marka aniga aan wax rabno inaan ku save gareyno sifo oo noo weydiin oo kale set up okay kharashaadka marka wuxuu leeyahay account noocee waa marka ma account oo dakhli miya account oo expense ama kharashaad la galay miya ama account waxa waaye oo bank oo lacag lagu keedinayo waaye ama account waxa waaye miya oo deen iyo waxaas ku saabsan waaye mise account waxa waaye hantiilayaal waaye waxaan dhahaynaa asiga noo dooray expense kharashaad aan dhahaynaa okay haddii halkan aan isdul taago kharashaad expense account sharaxaad yar oo ka bixinaya marka wuxuu ku leeyahay categorizes money spent in the course of normal business operations such as advertising and promotion, office supplies, insurance, legal fees, charitable contributions and rent. waa kiradii xafiiskii qalabkii iyo hataa xayeysiinta taas sameynayso shirkadda xayeysiin sameynayso taa account yani wuxuu noqonaya expense bay shirkad kuna ay ku ahaanaysaa ama minus bay ku ahaanaysaa marka waa in loo diiwaangeliyaa minus ahaan oo meel baa loo diiwaangelinayaa lama dhahayo expense waayo waxaan fi sabiilillah aan isdhaafno wax alla wixii shirkadda oo ku dhaco ama ka dhaco waxa waa la diiwaangelinayaa marka haddii ahaan lahayd expense kharash hadduu la bixiyey ama haddii income soo galay waxyaaba fara badan marka okay dheh inuu cashirka sii dheera ma rabo halkan waa waxaa rabta ka bedeli kartaa laakiin okay save and close ka dheh okay hadda waxaan diiwaangelinay kharashaadka shirkadda okay lacagta maxay tahay marka lacagta naga baxday waxaa waaye tusaale ahaan 250 ayaa naga baxday 250 ayaa naga baxday marka 250 kaas meeshan meemadan waxyaaba waxa ku qori kartaa waxyaaba u markaysaa waxaad ku qori kartaa waxaan soo iibsanay oo kale waxaan soo iibsanay miisas kuraas iyo computer marka halkan haddaa qorto waxaa sunaano yani waxaa sunan kartaa 250 maxay tahay oo qarshaadka aan shirkadda aan ogalnay waxaa soo iibsanay kuraas iyo miisaska waxaas oo kale marka waxaan dhihi karaa save and close ii diiwaangeli marka oo naga xir yani bakshadan iska xir okay halkan fiiso ifiga marka lacagtii noogu jirtay account-ka oo cookbooks-ka lacagta lagu furay oo kale shirkadda aan u samaysanay magacaas 449,750 ayaa ku soo hartay intee aaday marka wixii aaday waxaa waaye net income yani waxaa waaye khasaaro waaye net income kan halkaan aa ujeedis halkaan net income waxaa waaye wixii soo galo waa marka haddii meeshan ay ku qornaan lahayd 250 kelix
waxay ahaan lahayd shirkadda waxay heli lahayd faa'iido kale laakiin hadda shirkadda minus 250 waxaa ka horeeyo minus ka horeyso marka waxay macnaheedu waxay tahay waa khasaaro weeye 250 waxay ku tahay shirkadda khasaaro marka meel kale jirto oo laga eego report aan tagana waxaan dhahaynaa company and financial waxaan dhahaynaa profit and loss yani faa'iidada iyo khasaaraha itus marka OGD marka ordinary income iyo expense marka labada shay waxa waaye expense ayaa imaadey marka ma aha maxay ahdo income dakhli soo galay oo faa'iido ma aha laakiin waxa waaye expense oo soo galay waa kharash soo galay waa kharash ay ku tahay shirkadda ama minus ama nusqaan marka waa kan ujeedina kharashaadka shirkadda 250 ama 250 haddana waxa jirta total expense guud ahaan kharashaadka la galay waa 250 marka shirkadda 250 ayay hayda minus tahay marka insha Allah taala waan sii wada doonaa duulay dhaho assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hanaga ilowin subscribe iyo like iyo share wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markale